ilaahow dadkii iilayo alawi loo luudiye ilaahow ilmuhu waa signiin adhina naafowye ilaahow imbiib baanu nahay eegga dabadeede ilaahow unuun iyo lafo yaa iridka noo yaalla ilaahow arxama waysnacday iyo ehel la tuugaayo ilaahow adeer iyo walaal ways ag marayaane ilaahow cilmiga aakhiriyo eel la garan waaye ilaahow ducada iga ajiib kuu ergaanahay ilaahow ugandha iyo ruush laga arsaaqdooye ilaahow amxaarada cunaa loo abeedsaday ilaahow akhyaartii loley ulama tuuraane mar haddayan aalada wadwadin agabla weeyaane ilaahow addoolada nirgaha loo anqarin waaye ilaahow haruubkaa engegay tan iyo iimeeye ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay duco waa erey ka soo jeeda afka carabta af soomaaliga waa baryo waa tuugmo waa gacmo warasho iyo ilaah oo sacabada loo taagto wax maantaas mucurta inoo hayso inuu ina mihiibsiiyo ayaynu ka tuugnaa inuu inaga faydo dhibaato markaa ina hareereysay oo dhexdeeda aynu ku sayicsannahay ayaynu ka barinaa tu aynu ka baqayno oo inay soo dhowdahay loo filaayo inuu radeebana waynu ka tuugnaa ducadu waa hiddo uu aadanuhu ka siman yahay ay dux reebaan qofku isaga ayaa lafihiisa u ducaysta marna bulshada uu ku dhex nool yahay ayuu u duceeyaa kolkay dhibaato culusi si baas u wada saamayso ayay soomaalidu wadajir u ducaysan jirtay fagaaro lagu ballamay ayay soo buuxin jireen rag iyo dumar wiil iyo waayeel culimo iyo caamo halkaas baa inta lagu kulmo sheekha degaanka curadka reeraha iyo gabyaagoodaba waxaa la weydiisan jiray inay duceeyaan iyada oo inta kalena ay aaminsanayso allah u naxariistay maxamed guuleed faarax cadde oo waarana lagu nanaasi jiray wuxuu ahaa gabyaa hibada maansa curinta si walba loogu deeqay wuxuu ka mid ahaa halabuurada inay gabay wax kuugu sheegaan ay uga fududayd inay hadal caadi ah wax kuugu sheegaan 1978 mar aan balanballa kula kulmay ayuu ii mariyey gabay uu eebbaweyne kaga baryaayay inuu uunka ka soo gaaro abaartii dabadheer ee 1974 soomaalida silcisay oo saxariirisay wuxuu yidhi ilaahow adaa aadahoo lagu aguujaaye ilaahow ilaah kale ma jiro adiga mooyaane ilaahow aqoonshiyo runtiyo amarku waa kaaye ilaahow abuurtaadu waa abadmaguuraane ilaahow anoo kale tix baa lagu ikraamaaye ilaahow isniin baan dhashay iyo ururkii khayraade ilaahow warkaan saadiyaa la abshiraystaaye ilaahow ayaantaan gabyo yaa lay ogaan jiraye ilaahow adduunkan ma arag odaya raagaaye ilaahow afguri yaa dhacay iyo aamus iyo yaabe ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay intaa markuu yidhi ayuu eebbe u bandhigayaa dad iyo duunyaba siday abaartu uunka u halakaysay iyo gargaarkiisa degdega ah baahida ay u qabaan ilaahow dadkii iilayo alawi loo luudiye ilaahow ilmuhu waa signiin adhina naafowye ilaahow imbiib baanu nahay eegga dabadeede ilaahow unuun iyo lafo yaa iridka noo yaalla ilaahow arxama waysnacday iyo ehel la tuugaayo ilaahow adeer iyo walaal ways ag marayaane ilaahow cilmiga aakhiriyo eel la garan waaye ilaahow ducada iga ajiib kuu ergaanahay ilaahow ugandha iyo ruush laga arsaaqdooye ilaahow amxaarada cunaa loo abeedsaday ilaahow akhyaartii loley ulama tuuraane mar haddayan aalada wadwadin agabla weeyaane ilaahow addoolada nirgaha loo anqarin waaye ilaahow haruubkaa engegay tan iyo iimeeye ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay sida abaartu dadka iyo duunyada ay ku hayso iyo taagdarradooda markuu sidaas u kala dhegdhegay ayuu u soo dhacayaa waxa isaga iyo bulshadiisu ay rabbi ka doonayaan dabadeedna wuxuu yidhi ilaahow abaartana dawee ilina noo hoorto ilaahow cirkuna noo unkado uwaxna noo laaco ilaahow jiraan aafo wadin nagu ekee maanta ilaahow carradu aarantoo aayar lagu naaxo ilaahow abay noo dhasho inan kulayn waayo awaarihiga siigada allow roobku ku arooro allow subag ardaayada ku xiran awrtu sidii weydo ilaahow aroos loo baxo iyo ilaxidgeed weyn sidaan soo sheegay ducadu mar waa sidaasoo gabyaaga ayaa bulshada degaankiisa oo idin u duceeya marna keligiis baa maansada ku ducaysta